gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi Walaale ayaa ku wareejiyay raashin ku qoysa Beelaha la Haybsoco ee gobolka Togdheer deeqdan raashinka oo ka timi codsi ay madaxweynaha Soomaaliland u gudbiyeen Beelaha la Haybsoco ee gobolka Togdheer ayaa waxa deeqdani Beelahani ugu deeqay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi Walaale ayaa mar uu ka hadlayay goobtii uu ku wareejinayay deeqdan raashinka waxa uu sheegay inay hordhac u tahay 2,000 oo qoys oo ka soo jeeda beesha la Haybsoco oo madaxweynuhu ugu deeqay deeq raashin waxaan halkan ku wareejinayaa beelaha gabooye oo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi safarkiisii dhawaan uu ku yimi gobolka Togdheer oo runtii ay u soo gudbiyeen baahi jirta oo dadkii barakacayaasha ahaa ee beeshan ka tirsanaa baahi jirta sida daraadeed madaxweynuhu xuseen naxariis leh uga jawaabay codsigaas isaga oo ballan qaaday inuu 2,000 oo qoys raashin ah 2 bilood kala siin doono maanta halkan waxaan ku wareejinayaa 1,000 qoys ee bisha December loogu talagalay in la siiyo beelahaasoo ka kooban 4 madax sida ay u soo qaybsadeenna qoraal loogu soo gudbiyey boqaashooda iyo salaadiintooduba runtii waan uga mahadnaqayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland naxariista uu u fudiyay dadkiisa waxaan beeshana ka codsanayaa in sidaas si lamid ah idinkuna aad gaarsiisaan dadkii nuglaa ee beesha ka mid ahaa ee aad madaxweynaha uga codsateen inuu wax soo siiyo salaadiin cuqaal iyo waxgarad tiro badan oo ka soo jeeda beelaha la Haybsoco ayaa madaxweynaha Soomaaliland uga mahad celiyay deeqdan raashinka marka labaad maxad waxa iska leh guddiga gobolka gudoomiyaha gobolka iyo hawlwadeennadiisa aad iyo aad ayay hawsha horta uga hawlgaleen madaxweynuhu ma magacaabay ee uu nagu reebay waanu siiyay bishii u horeysay kunkeedii wuuna guddoonsiiyey annaguna waxaanu rajaynaynaa madaxweyne aad iyo aad baanu kugu ducaynay maanta ayaanu bishu ay shan tahayna aanu gacanta ku dhignay kunkii u horeeyey madaxweynaha qaranku waa mahadsanyey gudoomiyaha gobolku waa mahadsanyey waxa aanu gudoomaynaa midana madaxweyne raashinkii aad nagu ballamisay gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi annaka oo 4 beelood ah oo tumaalo madhibaan Muuse iyo beeshii Ibrood inta baan iskugu jirno aad iyo aad ayaanu ilaahay baa horta mahadle aad iyo aadna waanu kaaga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee aad nagu ballan qaaday ee aad noogana ajiibtay aanuna helay wixii aad nagu ballan qaaday madaxweyne wixii aad noo idmatay ee aad nagu ballan qaaday nagu ballisay gudoomiyaha waanu ka haynaa waa kuwa halka taagan 2,000 bay haayeen 1,000 baan halka taagan kun kalena insha Allah bishu markay dhamaato ayuu insha Allah aanu qaadi doonaa sida heedna dadkii waan gaarsiinanaa hawshan iyada ana kunna waa la wareegnay kunka kalena aniga beelasaabku si wanaagsan buu noola macaamilo bisha dambe iminka bilaamatay ayaa aanu qaadanaynaa samadii aradkan idinka soo ducaynay beelasaabka hadduu yahay madaxweynaha hadduu yahay hore marka labaad madaxweynaha waxaanu mahad ballaaran uga celinaynaa deeqda ballaaran ee dadka baahan ee dadkiisa madaxweynaha uu yahay uu soo gaarsiiyay waxa halkan mahad labaad uga celinaya madaxdeeda gobolka oo uu gudoomiye noo yahay Xamse Maxamed Cabdi Walaale wa Maxamed Ibrahim British TV-ga qaranka Soomaaliland Burco.